dumar qaar wax koonayaan ninkaygu khaladku iga galo dhan iska saamix lahaa bal ha qirto horta khaladkiisa taas baan ka soo jeednay in yaanu qiranin anigu ma haysto maxkamad ma haysto oo ma xukumayo maaliyada ma xukumayo jinaayad iyo faldambiyeedyo la isu geystay ama madani ha noqdo ama mid dhiig ha noqdo anigu ma xukumayo laakiin waxaan ka shaqeynayaa waa islaax weey nabiga markuu weydiiyay ninkii saxaabiga ah ku yiri nabiga ilaahay ii dardaaran nabiga wuxuu ku yiri la taqdab ha cadhoonin maaha macnaheedu cadhaya kugu soo dhacday bani aadam aan cadhoonaya laakiin waxa laga rabaa waa maxay cadhadeeda inaan maamulo laga rabaa sidaan u maamulaya waa inaan bartaa mahaaraadka xirfadaha lagu maamulo haddii la doonayo al-islaax in la sameeyo oo nin iyo gabadhii la heshiisiiyo qodobka ugu misan waa in sirta dhexdooda la ilaaliyo saa loo ilaalin karaa waa inaan laga hadlin ninka lama waxa lagu odhanayaa ninow ha ka hadlin xumaanta gabadhaadu ay leedahay gabadhuna waa inaanay ka hadal xumaanta uu ninkeedu leeyahay haddaba sidee baan u heshiisiinaya ninkii gabadha waan u yeelayaa shan qodob baan dabada qaban jirtay ragguna canaantii waxa uu ka iminka ragga meelaha ku gareeyay reeraha leh 12 habeenoo guryahooda tagay sababaha ugu weyn oo tagay ma taqaanaa mustafa de gabadhi baa qaylo kala hor imanaysa ninkana qaylo taagu ma hayo markii sida uu albaabka u soo galaaba la cunayaa la qabanayaa maxaa sameeyay maxaa taleefanka naga qowday maxaa caynka waa si waxa uu ga dhaco iyadoo hurdo weyn u tagaa subaxiina iyadoo kajada iyo meelaha ku jirta uu soo deemsanaa quraacda meelaha san xaflad ku leeyo suuqa waxa la rakiyo maqaaxiyaha ka quraacanaya hada quraacdii baa dadna guriga u yaalaaba waxaanu ka soo sheekeynay burburka waxa keena iyo khilaafaadka waxa keena maxaa lagu xalin karaa khilaafaadka qoyska mustafa markaan daba galay ilaahay subxaanahu wa ta'aala aayadda uu tilmaamayo in marka ninka iyo gabadhiisu ay iskhilaafaan in loo diro xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha xubin dhexdhexaadisa oo ka socota xagga ninka iyo xubin kale oo ka socota xagga qoyska waxaan isweydiiyey dhammaan khilaafaadka al-islaax daatul bayn oo dhan ka dhexeeya islaaxyada iyo heshiisyada ummadda dhexdooda oo dhan laga sameynayo mar qura ilaahay kuma xirin ama rasuulku sallallahu alayhi wasallam kuma xirin in qaraabo ka dhow ay heshiisiiso mooyaane ninka iyo gabadhiisa waxaan isweydiiyey sirta ku jirta maxay tahay in laba qof oo qaraabada qofka ee dhow ka socda ah in waxa weeye loo diro heshiisiinta labadan qof ay isqaba sirta ugu weyn ee ku jirta waxa weeye waa in sirta ninkan iyo gabadhiisa u dhaxaysa aanay banaanka u bixin mushkiladda iyo khilaafka dhexdooda ka taagan inaanu banaanka aanu aadin si taa loo ilaaliyo waxa la yiri yaa ceebtaada yaa ogaan karaa cidda ugu dhaw ogaan kartaa dawa hooyada ayaabaha maanta markaad iska bulatay gurigiina aad joogto adigoo feedha qaawan baad gurigiina dhex maraysa hooyadaa waa ku arkaysa waad ku kalsoontahay waxaad ogtahay hooyadaa ceebta kugu sugan inaan banaanka u saarayn aabbaha hadduu ka arko adigoo qaawan waxaad ogtahay inaanu ceebta odhan ilmahayga sidan ugu eegya ee uu sirtaada xataa hadduu xun yahay ilmahaasi hooyadii aabiyi waxay isku dayeen inay waa boqor weeye ilmahayga masaga qaldamaba si sirtii dhexdooda u taale loo ilaaliyo baa loo diray waxa weeye xakam sida awgeed waxaan nidhi haddii la doonayo al-islaax in la sameeyo oo nin iyo gabadhii la heshiisiiyo qodobka ugu misan waa in sirta dhexdooda la ilaaliyo saa loo ilaalin karaa waa inaan laga hadlin ninka lama waxa lagu odhanayaa ninow ha ka hadlin xumaanta gabadhaadu ay leedahay gabadhuna waa inaanay ka hadal xumaanta uu ninkeedu leeyahay haddaba sidee baan u heshiisiinaya ninkiiyo gabadha waan u yeelayaa 5 qodob baan ka saxeexaya qodobka koowaad waxa weeye ninku wuxuu ii sheegayaa waxa uu doonayo ninow maxaad u baahan tahay waxaan u baahanahay markaan cadhaysnahay gabadhaydu ee aan maago waan qayliyaayoo si xun baan u hadlaaya inaanay gabadhaydu ii cadhoonin oo aanay gurigoodii aanay aaduna iga dudin oy dulqaad ii samayso waxaan u baahanahay gabadhaydu inay waxaa inay qabato khalaas ma dhamaysa haa markuu isdhaahda ka hadal wax xun waxa laga odhanayaa kama hadli kartid xumaani ma jirto sheegu waxaad doonayso gabadhana waan ka hadlanaynaa maxaad doonaysa waxaan doonayaa waxaa biilka inuu ii kordhiyo goor hore inuu xaajiga ugu yimaado waan ku cidlooday guriga inuu waxaan ii sameeyay inuu waxa weeye fasaxayo inaan u baxno meelaha safara arrimaha doonayso ka hadal qodobka labaad waa maxay lagama hadli karo wixii tagay hore naloo heshiisiyo hebel baa ka baxay iyo waxaas ma jirto qodobka saddexaad wax xumaana lagama hadli karo ma sheegi kartid hal dhaleecayna oo gabadhaadu ay leedahay nin gabadhuna ma sheegi karto hal xumaana oo ninkeedu ay leeyahay qodobka afraad waa maxay waxaan ka fogaanaynaa inaan raadino manil mukhti yaa khaldan ma raadinayno manil muxaq yaa xaq lahaa ma raadinayno yaa khaladka bilaabay ma raadinayno afartaa qodob marka aan la nimaadno qodobka shanaad ee raacaya waxa weeye ma raadinayo al-i'tidaar wa ta'assuf inaan idhaahdo gabadh ay cudur daaro iyo ninka dumar qaar wax koonayaan ninkaygu khaladku iga galo dhan iska saamix lahaa bal ha qirto horta khaladkiisa taas baan ka soo jeednay in yaanu qiranin
anigu ma haysto maxkamad ma haysto oo ma xukumayo maaliyada ma xukumayo iyo jinaayaad iyo faldambiyeedyo la isu geystay ama madani ha noqdo ama mid dhiiga ha noqdo anigu ma xukumayo laakiin waxaan ka shaqeynaya waa islaax weeye marka gabadhu laga hadlayo iminka dumarku qaarkood way dudaan guryahoodii bay deedna qabtaan aabihii iyo walaaladeed baa wareysanaya muxuu ninkugu sameeyey haye miyuu ku dilaa haawii dilaa muxuu kula dhacaa laad biidhiibaa markuu waxa weeye cadhooda haye muxuu kale kugu sameeyaa biilku igu adkeeya muxuu kale ceebihii ninkeeda oo dhan bay banaanka keentay inta ugu badanna dhaqan waxaynoo ah innaga inaynu ka maraatayno ka wareegaalaysano xididka iminka ninka aad walaashii qabto xataa haddaad aragto maqaaxima fadhiyo waad u gasaysaa maqaaxida kale aad qabanaysaa adigoo ilaalinaya karaamadii diida ka dhexaysa de bal ka waran reerkii dhammaayad inanta ka guursatay markay golaha kuu soo fadhiistaan mustafa ku dhahdaan inanteeda waad dishay sidanaad ku samaysay kana caynka oo weliba odaguna uu dhiigi kar ku kaco oo deedna lagu dhahdo waa lagu xukumay 50 halaadoo xaalaa lagaa rabaa oo 50 halaadna inaad haysaninba ee reerkiina laga soo qaaraamo laga soo waxa weeye la soo meelahaas oo dhan la soo maro ma waxba la hagaajin soo la xumiyay gurigaasina ma sii taagnaanaya nin aad ceebaysay oo banaanka soo saartay dowro shalitaan waxa weeye jaacada golis ee qayb sharciyadan ku qabtay ba waxaan kaga hadlayay sida loo xaliyo daaweynta loo sameeyo xanuunada nafsiga ee dumarka ku dhaca dumarka waxyaabaha igu lahaay waxa kamid ay ku doodayeen gabadho haddii aanay ninka sheegin xumaantiisi wixii uu geystay aanay sheegin sidee bay nafisiisa ila waxa lagu nafisaa hadal baa kamid ah taa waxa barbar socota been fakatay baa jirto banaanka martay beentaas waxa weeye marka ay dhibaato kugu dhacdo ama aad cadhooto cadhada ha isku celinna hadal xataa waxaan arkay wadaado meelaha kaga sheekeynayo oo kaliba soodba niman dhalinyaraayo caan oo meelaha ka hadlayo leh marka aad cadhaysan tahay waxa kugu jiro dhan waa laga hadlaa haddii aad isku ururiso sida qumbuladaad qarxaysa taa cagsigeeda ilaahay baa amraya wal kaadimin alghayda waxa la ii amaanaya ilaahay oo amaanaya cidda cadhada waxa weeye qarsatay inay kamid tahay waxa weeye dadka muxsiniinta inay ku jiraan wal caafina can الناس nabiga markuu weydiiyay ninkii saxaabiga ah ku yiri nabiga ilaahay ii dardaaran nabiga wuxuu ku yiri la taqdab ha cadhoone ma macnaheedu cadhaya kugu soo dhacday bini aadam ma cadhoonaya laakiin waxa laga rabaa waa maxay cadhadeeda inaan maamulo laga rabaa sidaan u maamulaya waa inaan bartaa mahaaraadka xirfadaha lagu maamulo waan taagnaa fadhiiso shaydaanka iska naar soo weysayso laba ragcadood tuko deegaanka iskaga tag cirka daawo waxyaabaha dad la timaado cadhadii ku haysay oo dhan meesha ay ka baxaysaa laakiin marka aan gabadha ku iraado aan ku soo noqdo dooda ah gabadha weyna hadasha oo ninka ceebihiisii wixii uu ku sameeyay ka hadasha macnaheedu waxa sirtoodu weyna banaanka soo saarta islaaxu wuxuu ku shaqeynayaa kaliya inaan iraado ninow maxaad u baahan tahay intana doonay gabadha aadna maxaad doonaysaa intana doonaya ballan qaad ninow inay inta fulinayso imika dumarka baraha bulshada igala soo xidhiidhay iyagoo cabanaya ee doonaya inay hadlaan waxaan ku dhahdaa cod soo duuba cod bay soo duubaan waxa laga yaabaa codkaas waxaan ku dhahdaa ha isku yareen codku intuu doonaha noqdo 30 daqiiqo 40 daqiiqo inta doonto soo duub way soo duubaan 40 daqiiqo codku waan daaraa inta ugu horeeya marka aan fahmin inuu yahay khilaaf nin iyo gabadha u dhaxeeya waan iska waqtiyaa way anigu ma baahni inta dambe inaan ogaado maalin boo halkaa iga saaray maalin buu sideen waxa dambe ma baahni deedna waxaan u sheegaa waxay sameyn lahayd gabadhii la soo xidhiidhay oo ii sheegtay in ninkeedu 2 bilood oo fasaxa uu yimaada 2 bilood markuu magaalada yimaado waxa weeye uu banaanka uu ka yimaado 2 bilood halkuu iyada kala qaadan lahaa wuxuu ku dhameystaa fasaxyo gabadhu matalan tusaale ahaan Hargeysa degan tahayba 2 bilood waxay inuu Hargeysa kula qaato soo ma ahayn wuxuu oranayaa usbuuc ceer gaaban ka soo noqonaya usbuucna Hargeysa waxa soo joogaya barbaraan joogaya usbuucna asxaabteeda reer Burcaan u tagaya 2 bilood muxuu ku dhameeyay meeraalays hal usbuuc laga yaabaa inuu la joogo gabadhaas markaa waxay ka shakiyeen inuu ninkan xaas labaad leeyahay waxay kala ka shakiyeen in ninkan aan agtiisa wax qiimo aan kala hayn marka intaa hore markaan fahmay intii dambe waxay haydin waxyaabo kala dheeraada waxaan ku yiri gabadha waxaad ii sameeysaa walaalay hal ixsaani sameey ninkaagu wanaagiye ma leeyahay saytaha uu leeyahay waxaan ku waxaan doonayaa qoraal inaad ii sameeyso 10 shay oo ninkaagu ku wanaagsan yahay mid walba xilligii ay dhacday wanaaga uu ninkaaga uu ku sameeyay mid walba xilligii ay dhacday oo qoraal ay soo qor soona faahfaahin intee doonto waqtiga ku qaato 2 saac 3 saac ku bixi waqtina oo ku siinaya caawa oo dhan la maqnow bari subaxan fariinta ka helo fariintii bay qortay 3-4 page fidan noqday marka WhatsApp-ka meelaha lagu qoray qoraal dheer oo noqday qoraalkii markaan uma akhriin intii ugu horeeyay markaan arkay inay qodobadii soo qortay qodobadna ciwaanka guud aan eega arkay 10 wanaag ay soo qortay bay gabadha cod ii soo duubtay
waxay ku tiri inta aan wanaagyada ka sheekeynayay waxa isbedelay dareenkayga markii hore ninkayga waxa igu buuxay kaliya maxay xumaantiisa igu buuxtay laakiin imka waxa ii muuqday wanaaga uu leeyahay jaanibkii wanaagsanaaba wuxuu ka xoog batay jaanibkii xumaa marka ninkaygii waxa weeye imika laga bilaabo waxaan u hayo coqdadahay ma jirto iyo xumaantoona waana uu imanaya 2 usbuuc ka bacdi bay imanaya sababtaasaan kuula tashanayayba waanu duceeyay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala isku asturo ninkii baa u yimid farxad fiican 2 bilood oo meelaha la show gabadhu marka uu yimaado canaan bay dabada u qaban jirtay raguna canaantii waxa uu ka imika ragga meelaha ku gareeyay reeraha leh 12 habeenoo guryahooda tagay sababaha ugu weyn oo tagay ma taqaanaa soo de gabadhi baa qaylo kala hor imanaysa ninkina qaylo taagu ma hayo markii sida uu albaabka u soo galaaba la cunayaa la qabanayaa maxaad soo sameeyay maxaad taleefanka nooga qaweed maxaa caynka waa si waxa uu ga dhaco iyadoo hurdo weyn u tagaa subaxiina iyadoo kijada iyo meelaha ku jirta uu soo deemsanaa quraacda meelaha san xaflad ku leeyo suuqa waxa laga sakiyo maqaaxiyaha ka quraacanaya hada quraacdii baa dadna guriga u yaalaaba hada ma aragta marka waxa gabadhii galay jacaylkeedii baa kor u kacay wanaageedii ninkeedii ogaatay 2 bilood si raaxo leh u dhameystay marka 2 bilood u dhamaatay ka bacdi bay codii soo dubtay ay duceynayso need waxa weey nolosheedii baad xagga wanaagsan u bedeshay 2 biloodna wuxuu odaygaygu uu doonayay inuu wuxuu igu yiri fasaxa kan ku xiga 4 bilood baan ka soo dhiganaya hadda ma aragtay marka islaaxaan u baahanay waxa weeye xumaan la soo fuqin la soo qofin waxa xun laakiin wanaagaan is xasuusin ninkuna ha sheegto wuxuu doonayo gabadhuna waxay doonayso intaasan deedna ku islaaxinayna bushaaro bulshaweynta ku hadasha afka Soomaaliga meel kasto ay ka joogan dunida waxay ugu bushaaraynaysaa akaadamiyada dadaal ee barashada Quraanka Kariimka iyo luqadda Carabigu inay bilowday qaadashada ardayda cusub ee habka online-ka wax lagu barayo ma ku nooshahay qurbaha ubadkaaga ma la jeceshahay barashada Quraanka Kariimka iyo luqadda Carabiga ma doonaysaa macallimiin kula hadla ubadkaaga luqadu fahmayo sida afka hooyo ee Soomaaliga iyo luqadda Ingiriisiga inta iyo ka badanba waxaad ka helaysaa akaadamiyada dadaal ee barashada Quraanka Kariimka iyo luqadda Carabiga waxaanay ubadka baraysaa akaadamiyada dadaal Quraanka Kariimka tajwiidka Carabiga culumta shareecada ducooyinka iyo luqadda Soomaaliga waxay faahfaahin dheeraad kala xidhiidh akaadamiyada dadaal lambarada shaashada kaaga muuqda kana mid noqo adiga iyo ubadkaaguba dufcadda 6aad ee Quraanka Kariimka ka barata akaadamiyada dadaal